Bariga Afrika ama Geeska Afrika waa dhul kulul haddana qalalan saxaro ee ka dabaylo badan una nugul abaaraha iyo musiibooyinka kale ee dabiiciga ah sida fatahaadaha, mowjadaha kulul ee dabaysha, cayayaanada, bacaadka guurguura iyo musiibooyinka kale taas oo keensanaysa cudurro iyo gaajo isxigxiga. Dhul aan lahayn caws fiican iyo biyo yari badanna ay ka jirto, bulshada degan intooda badanna reer miyi yihiin oo aan lahayn warshado iyo wax soo saar badan. Si loo maareeyo arrinkan layskana kaashado dhibaatooyinkan waxaa loo baahday in loo midoobo. Madaxweynihii Jabuuti ee waagaas Mudane Xasan Guuled Abdidoon wuxuu safar ku tagay wadamada Geeska Afrika oo dhan sidii uu isugu keeni lahaa ama loogu midoobi lahaa musiibadaas darteed. Si uu ugu qanciyo dadkan inay u midoobaan musiibooyinkan, wuxuuna ku guuleystay sanadkii 1986 inuu isu keeno wadamada kale ah Suudaan, Uganda, Kenya, Itoobiya, Eritrea iyo Soomaaliya. wuxuuna sidaas ku aasaasay urur goboleedka IGAD 1986. markii dambena wuxuu siibtay IGAD maanta jirta, xaruntiisana waxaa laga dhigay Jamhuuriyadda Jabuuti. Muddo kadib waa uu burburay, waxaana dib loo yeegleelay bishii Maarch 9 1986. markii hore ujeedku wuxuu ahaa maareynta musiibooyinka dabiiciga ah oo kaliya. markii dib loo aasaasay waxaa lagu soo kordhiyay inuu ka qayb qaato siyaasadda iyo nabadda guud ee bariga Geeska Afrika. siyaasadda iyo nabadda guud ahaan geyiga Geeska Afrika. dadka Geeska Afrika uu ku fadhiyo wuxuu gaarayaa 5.9 milyan oo square kilometer. bulshada deganna ku dhawaad waxay gaaraysaa 464 milyan 320,201 qof. wadamada uu ka kooban yahay waxay gaarayaan 8 wadan oo kala ah: Soomaaliya, Itoobiya, Eritrea, Jabuuti, Kenya, South Sudan, Sudan iyo Tanzania. IGAD intii ay jirtay waxay ku guuleysatay inay isku xirto, qorsheyso, dejinto siyaasadda, aqoonta iyo dib u heshiisiinta iyo horumarinta gobolka Geeska Afrika. waxayna sidoo kale ku guuldareysatay markii horeba wixii loo aasaasay oo ahaa ciribtirka abaaraha iyo nabaad guurka dhulka sii noqonaya saxaraha ee bariga Afrika. welina caqabadaas way taagan tahay oo maysan xalin. بدكم مع سنتي لسه 20. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.